ilmo way noolaayeen markii dhiigga laygu shubay caadi bay ciyaarayeen markii dhiigga laygu shubay dhaqaaq ugu dambeysay ilmo markii dhiiggii lagu shubay ka bacdi taa habay gabadhii bilowday dhacdooyinka maalinlaha ah ee ku xiran bulshada qaarkood waa kuwa xanuun badan oo saameyn iyo uur ku taalo ku reebaysa nolosha dadka. Tani waa sheekada Jamiila Xuseen Muuse oo ah hooyo ku jirtay waqtigii umusha una diyaar garoobaysay inay foolato mataana caloosheeda ku jiray, balse dhakhtarkii ay miciinka biday ayaa ku shubay dhiig aan keedii ahayn kadib markii ay hooyadani u baahatay in lagu shubo dhiig sida ay noogu xaqiijisay isla markaasina ay cadeymo uga dhigtay waraaqaha ay siiyeen cisbitaalada Gabiley iyo Hargeysa. Waxaana arrintani ay sababtay in mataanihii hooyadani foosha u diyaar garoobaysay ay ka soo daataan sida ay ku cabanayso hooyo Jamiila. waxaweyaan walaal caafimaad baa la ii geeyay dhakhtarka muddo labaad caafimaad markii la ii geeyay fool baa la ii geeyay fooshii markii la dhigay dhakhtarkii ayaa la yidhi gabadha dhiig ku shuba dhiiggan dhiigga igahayn baa laygu shubay markii dhiiggii laygu shubay ayaan cuncun iyo kuleyl dareemay markiiba igu dambeysay Maryamaan markaa ilmo way noolaayeen markii dhiigga laygu shubay caadi bay ciyaarayeen markii dhiigga laygu shubay dhaqaaq ugu dambeysay ilmo mid ka mid ah ehelada hooyo Jamiila oo haysay muddadii ay hawshani ku jirtay ayaa ka warbixinaysa sida ay wax u dhaceen. Jamiila Xuseen Muuse markaa iyadoo foolana soo mataanisida markaanu geynayna maxay hayday waa bilaadhig baa layidhi gabadha dhakhtarada ugu yeedhay ninka jooga ee Afrika madow markaasuu ku yidhi way foolanaysaa awlaadeeduna way hagaagsan tahay way wanaagsan tahay dhiigun ku shuba dhiiggii baa lagu shubay gabadhu way foolanaysay marka hore iska caadi bay ahayd markii dhiiggii lagu shubay ka bacdi taa habay gabadhii bilowday halkii fool laga eegayba fool way kari weyday sariirta way ka kici kari weyday xanuunkaas markaaba la kordhay waa bilaadhigo hadana dhiig labaad baa lagu shubay 9 baa lagu shubay qirbad mar labaadka hore 4 baa lagu shubay waad fiicanta waad wanaagsantahay iska bax baa lagu dhawayna umusha awlaadi waa ka shafeecday awlaadi marka dhimatay iyo dibaditaaniyada saarnay 3 cisho isbitaalka markaan ka maqalnay kooma gashay markay kooma gashay ka bacdi ayaan soo celinay haddana waxa lagu shubay isla dhamaan 9 qirbad baa lagu shubay 9 qirbad markii lagu shubay ayaanu qaadnay Hargeysa u gudbinay Hargeysa markaan u gudbinayna waa bilaadhig dhiig ku shuba dhiigii markaa Gabiley noo sheegtay ragii lahaa baa loo ururiyay kaalay baa lido way yimaadeen waa la waayay ka bacdi ragii dhiigii markii yaynantii dhiigagii la baaray dhiigan aad inagu keenateen inantu la dhiig ma habaan inagu yiri ka bacdi markaasaan ku nidhi waa taayo warqadeeda waa taayo dhiigaygu waa taaye dhiigii horena noogu shub jiray ragoogi baan wadanaaye hana noo eego waanu isku qabsadno halkii baa la isku qabsado shaqo kuma lihin baa la dhiigana laynagu shub jiray shaqo kuma lihin dib dambaan u baarnaa dib dambaa loo baaro haddana mar labaad baa la baaro dhiigayga dhiigii inanta way isnoqon waayeen gabadhii oo sakaraadan markaa Hargeysa geynay kaliyaha iyo beerku labadaas ayuu dhiigii waxyeelaa leeydi waana basteedu maxay hayday isbitaalka Hargeysa taala marka waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka ayay taas qusaysa awlaadina shafeecday iyadina waa sakaraad kaliyaheegu ma fiicno beerkeegu ma fiicno waa sakaraad oo magaalada Hargeysa isbitaalka Hargeysa taala. dhankeeda agaasimaha guud ee cisbitaalka Gabiley Dr. Naciime Yuusuf Cilmi oo MMTV oo xiriir toos la sameeyay ayaa sheegtay in hooyo Jamiila ay cisbitaalka Gabiley soo booqatay iyada oo uur leh oo dhiigu ka yar yahay isla markaasina loo sameeyay adeeg caafimaad ee ay awoodi kareen kana baxday cisbitaalka iyadoo caafimaad qabta kadib mar labaad ay cisbitaalka soo booqatay xaaladeeda caafimaad ay u gudbiyeen cisbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa se Dr. Naciime way ka gaabsatay inay faahfaahin intaasi ka badan ka bixiso xaaladda hooyadani ka cabanaysa in dhiig qaldan lagu shubay.